maxkamadeena ma laha xeer ay ku aasaasantahay maxkamadda dastuuriga oo kala caqabadaha kaga imanaya qof waliba tabashadu qabo ama gol ahaan ha ahaado ama se individual shakhsi ha ahaadee wixii qodob dastuuri ah la isku qabtay ee qof xuquuqdiisa u arka in ay sidii uu doonayay si ka duwan ay u dhacayso oo loo fasirayo mid kale jirto xeerku wuxuu xadidaa xeerkan muxuu ahaay la yiraahdo habka maxkamadda dastuuriga loo galo in ay qeexnaato habka ay maxkamadda dastuuriga lafteeda u garqaadayso ma gudoomiyaha ayaa waajiba in uu mar walba joogo oo xubnuhu isu dhamaadaan ma gudoomiyaha waa sayn gareyn kara garsoorayaal gaar ah waa qaybo ka mid ah hadalla ka soo yeedhay garyaqaan cabdinaasir maxamed shide oo waraysi gaara siinayay telefishinka sunmi isagoo faahfaahin ka bixinayay sharciyan jidka ay u mari karto maxkamadda sare ee Somaliland tafsiir sharci oo laga sugayo oo ku aadan xeerka furista ururada iyo asxaabta siyaasadda kaasoo ay ku kala qaybsameen mudanayaasha golaha wakiiladu. garyaqaan cabdinaasir ayaa ugu horeyn waxa uu waraysiga ku faahfaahinaya jawaabta su'aasha ah sharciyan ma sax bay ahayd in mudanayaasha golaha wakiiladu murankooda xalkiisa u raadiyaan maxkamadda sare mise qalad ay ahayd sida ay dadka qaar aaminsan yihiin. maya waa sharci in marka muran yimaado qodob dastuuriyana la isku qabto maxkamadda loo gudbiyaa waana sharci weeye de waxa weeyaan waxaan ahayn in loo gudbiyo jihadii ay qusaysay marka muran yimaado oo kaloo la geli karaan jirin laakiin waxa isweydiintu tahay in la fahmo marka koowaad labada dhinac ee muranku dhex yimi in si rasmiya loo fahmo maxay isku hayaan yaa wax ogolse yaa wax diidan cidda wax ogoli waa cidda ogolaatay xeerkani wuu soo baxay golayaashu way baaskareeyeen madaxweynahana waa loo gudbiyey madaxweynuhu sida uu qabo qodobka 7 dastuurku xubintiisa 5 iyo 6 muddo cayiman buu leeyahay inuu ku soo celiyo xubinta waliba 6 waxay toos soo odhanaysaa muddada cayiman waxa weeye 20 cisho 20 cisho haddii uu ku soo celiyo madaxweynuhu wixii uu soo jeedinahay uu ku soo lifaaqo golaha dib uga doodayo oo dib baa loo eegayaa haddii se muddadaasi ka dhammaato oo madaxweynuhu jaaniska intuu haystay uu soo celin waayo automatically si toosa ayuu xeerkaasi u dhaqan gelayaa buu odhanaya qodobka marka haddii uu madaxweynihii ku soo celiyey muddadii loogu talagalay ahayd 20 cishana waxa weeyaan xaq buu leeyahay haddii uu se ku soo celiyo muddadii 20 cisho ahayd iyadoo ka dhacday madaxweynuhu ma soo celin kara markaa leena xeerkii markaa uu dhaqan galay muddahaan buu dhaqan galay. garyaqaanka ayaa intaasi kadib waxa uu ku dheeraaday sharaxaadda natiijada laga filan karo iyo go'aanka ay qaadan karto maxkamadda sare iyo weliba jidka u furan niyow maxkamadda waxaa laga filan karaa horta waxa weeyaan inay iyadu cadaalad samayso laakiin mid baa jirta oo habka wax loo gudbiyey qalad inuu ku jira waad moodaa sababtoo ay tahay ciddii gudbisay xaq bay u lahayd inay gudbiso laakiin in golaha qaybtiisa kale ka soo jawaabaan bay ahayd runtii ilaa hadda kamay soo jawaabin saan ka warhayo qoladii wax tabatay ee tiri waa sax waa ansax ayuunbaa gudbisay qoladii tiri ansax maaha jawaabtoodii ilaa hadda waxaan maleeyahay maxkamadda lama keenin marka waxaa muhiima in iyaga laftooda qoladaas soo jawaabto oo horta waxa la isku hayo ma qodob baa la leeyahay dastuuri ma aha oo sharciyan wuu qaldan yahay mise qodob baa la leeyahay waa dastuuri laakiin waxa weeyaan macnihiisiibaa qoloba si aragti ka qaadatay oo fahamkiisiibaa macnayaal badan ixtimaala oo galay oo macnaa afkaartiisa lagu kala duwanaaday marka haddii ay tahay qodobkan dastuuri maaha qoladan waxay ku doodaysaa qolada diidan wax hadday leedahay qodobkuba dastuuri maaha oo 14 in saa la yidhahdaba dastuuri ma ahayn waa baab hadday leeyihiin wuu ahaa dastuuri laakiin fasiraad buu u baahan yahay oo waxa weeyaan systemka habka fahamkiisa ay noqotana iyaduna waa baab marka imika saynu ka hayno warka waxa weeyaan waa fasiraad baa la doonaya fasiraad waxa isweydiin leh maxay qabaan qolada gudoomiyuhu uu la jiro shir gudoonku
xerta dhinacaasi maxay qabaan iyagu taasi waa muhiim ta kale meesha ku jirta waxa weeye maxkamadeennani ma laha xeer ay ku aasaasantay maxkamadda dastuurigii oo kale caqabadaha kaga imanaya maxkamadda dastuuriga waxa idin loo sameeyay xeer ay ku aasaasan tahay waayo iminka maxkamaddu process bay adduunka leeyihiin maxkamadaha dastuuriga loo maro inagu maba lihiin processka in looga qiyaas qaato in dacwadahan caadiga ee maxkamadda sare yimaada mooyaane si dastuuriya dacwadaha u imanaya waxa laga yeerayo kow waa in kolka koobaad sida ay xeerarka caadiga dhigaan inagu aynu wax ka soo qaadanaa waa inay jiraa qodob laysku hayo oo la qeexaa sababta la isugu hayo fasiraadiisa anigu saasaan u fahmay waa in la yidhaahdaa qoraalkaasi meesha yimaada waa inay timaadaa muxuu ahaayey qodobkana waa in la qeexaa sidoo kalena waa inay caddaataa cidda markaa ku doodaysa xaqa ay leedahay haddii uu sida lagu sii wado wuu lumaya taana waa in la qeexaa sidoo kale marka processka la soo marnayo waa inuu helaa muxuu ahaayey sidii caadiga ahayd dacwadda ay u furantaa oo uu soo maraa processkii ahaa muxuu ahaayey in uu ku cad yihiin cidda dhinacyada ah dhinacyadiisa iyo sida dacwaddan caadiga ah dhinacii dacwoonayay iyo dhinacii la dacweynayay waa inay ku qeexan yihiin sidoo kale waa inay ku qeexan tahay rusuumtii iyo fiigii dacwad furashadu waa inay iyaguna ku cad yihiin wax alla wixii oo dhan inagu process uma lihin marka taasi kolley iyo kolley waxay u baahanaysaa maxkamadda waxaa laga yaabaa inay wax ku qaadato mid kalaa jirto xeerku wuxuu xadidaa xeerkan muxuu ahaayey la yidhaahdo habka maxkamadda dastuuriga loo galo in ay qeexnaato habka ay maxkamadda dastuuriga lafteeda u garqaadayso ma guddoomiyaha ayaa waajiba inuu mar walba joogo oo xubnuhu isu dhammaadaan ma guddoomiyaha u asayn garayn karaa garsoorayaal gaara codka ay ku soo baxayaan markay doodaan ee ay iyaga laftooda wareejiyaan cod intee leeg buu ay koorumkooda ku dhammaystirmaya systemkaas oo dhan waxa weeyaan xeerkii waxaa u kala fududaynayay ma hayaan marka waxay noqonaysaa inay iyagu si traditional ahun oo iska caadi ahoo iska habdhaqan ahun ay dacwadda ku maamulaan oo laga yaabo in ay aragti uun muxuu ahaaye aragti aada ugu kala duwanaadaan waxna xeer soo xigtaan waxna xaaladda uun soo xigtaan marka taas waa laga yaabaa inay maxkamadda waxoogaa aan isku xidhnaan la-aan ama waxa weeyaan hab qodob ay si rasmiya ugu noqdaan habkay hawshooda u maamulayaan iyada lafteeda inay waayaan wax suurtagala waana dhibta ugu badanee maanta ina haysata inaanay maxkamadda dastuurigii lahayn xeer ay ku aasaasan tahay marka taasi waxay keenaysaa in kolley firashadu waxay noqonaysaa uun maadaama madaxweynihii soo celiyey xilligii uu dhaqan galay xeerku uu soo celiyey qoladan kalena leedahay may mar hadduu noo soo celiyey uun waa ka doodaynaa halkaa waxaad ka dareemaysaa inay doodu tahay uun xeer dhaqan galay ma laga doodi karaa taa macnaheedu wax weyaan maya lagama doodi karo already xafiiskii madaxweynaha ayuu xeerka ku dhaqan galay maadaama xafiiskii madaxweynaha xeerka ku dhaqan galay dooda dambe imika golahu leeyahay waanu ka doodaynaa mid sharciya ma noqonayso oo de waxa weeyaan hadday leeyihiin waa sharci waxay ahayd inay iftiimiyaan ay yidhahdaan war madaxweynuhu isagu xafiiskiisii ku dhaqan galay oo muddadii ka dhacday hadduu soo celiyo oo uu yidhaha golaha muxuu ahaye ka dooda waa ka doodaynaa waayo qodobkaasaa noo banaynaya taa may odhan waa uun fikir la wareejinaya uun baad moodaa marka wax walbana haddii buuq la geliyo oo muxuu ahaye wax saa u qurux badan maaha waxaan anigu filayaa inay maxkamaddu soo saari doonto go-aan cadaaladeed muxuu ahaye dadka ciddii dananaysa maxaa siyaasadda somaliland ay ka qayb qaataanna ay isu diyaarin doonaan inta maxaa xilliga marka la gaadho bisha May ee soo socota in ay si wanaagsan qolo walba usoo diyaarsato wixii ay kaga qayb qaadanaysay iyo ururadoodii diyaargarayntooda maxkamaddana ay la gudboon tahay inay amar uun imika soo saartay tiraahdo xeerkaasi wuu dhaqan galay ururadu ha isu diyaariyaan in ay maxaa waxa leeyihiin shakhsiyaadka doonaya ama ciddii doonaysa inay siyaasadda ka qayb qaadato ha isu diyaariyaan guddidii muxuu ahaayey kala reebidda axsaabta iyo howlaha ku howlanaan jirta in la howlgeliyo oo la cayimo oo ay hawshoodii gudagalaan oo ay isdiyaariyaan taas muhiimka loo baahayay